ميكروفون كذا أنا قصينا ماي أفرن أنا أهاتو شيخ مركلة أي واحد شيء ماي هلا هو هلا هرت هات ميكروفون كعشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ياش إنه وحرا أصحابتنا دمانتين وإذن سلامني سلامة إسلامك ونقوة MK ما أنت وحدين عيجا فديو شيخ عبد الله أو ذا قرنيسان ما أنت وحو إنوية هاي مرتي ونا إنا صوب بغضي إن شاء الله تعالى وحي أننا أنكفا إذا سنكرنا جانس كاسير وإنو كفا إذا سنطرنا دمانتين مركا سؤالك وبنا ويدين دونا هدو ربي إدمو waxaan jecel lahay markasta oo sheekhana la kulmo inaan su'aalo weydiino si aan wax uga faa'iidno khibrad uga helno diiniyan iyo maadiyan iyo aqliyan intaba inaan wax ka faa'iidno jecelna insha Allah marka waxaan meeshan ku soo qortay su'aalo kooban insha Allah su'aalahaas adinkana waxa laga yaabaa inaad isweydiineyseen waanan weydiin doonaa insha Ar-Rahmaan sheekh badbaado ku soo dhaw barnaamijka ما سنتاد وما سنتادي أصحابته وسلامية وأنا كل واحد إن شاء الله تعالى ومركنا يكلن كله kulumadu waska soo daba dhacayaan ma sha Allah waa codsiyada inta badan inoo ga yimaado asxaabta waxay yihiin inaan kugu soo celcelino barnaamijka anagana halkii ka socota hawsh hana inaga maaratay waqtiga aad nasiinaysidna insha Allah taala aan kugu dhibnay markasta kaaga mahad celinayna waana rabitaankanaga waxa la isku leeyahay marka waxa jira su'aalo fara badan oo dadka asxaabta isweydiinayaan marka waan idinku bilaabaynaa su'aasha koobaad dadku waxay maqlaan Sheikh Abdullah Faruq Sheikh Badbaado Sheikh Faruq waxyaabo badan Sheikh dumarka u heelin jiray marka bal caawa waxaad inoo sheegtaa magacaaga oo saddexan bal inay dadku ku bartaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta aniga hawlahaas ma gala inta badan waana ogyihiin walaalaha markaan muuqaalada la socodsiinayo magacayga ku bilaabo inta badan si fiican يعني مهمة ما أركو هذا عندك بلاوي هديك هذه مهمة واحد شيء مقعي وحبك فايدة ميان مركا أنت بدن يعني مقعي واساسي ولا سكوب مشغوله سويته حوي وحا سوق الدنيا كمهم صن مقعي مهمة وحوي نحر كل سوق الدنيا لكن هدي أي دنتو خسبتها ما ظروفك أنتو أصحابت ولا صدار إني ها الهبان ولا مر مركز إن شاء الله تعالى إلا مقعة ووحى صمدة قف لو قرطه سي أي نوسي قرطان إلهي أرد مقعة يكون أنت بدن هذا بريهان وقف صديبة ماشي حدا مرة اللي ده بدباد الشيخ بدباد ليه مقعة كان الكاكو بحي بحي بها بدنا قاري ليه بدباد ويبهوش ما شاء الله أنا بفرح سنة مقعة أديات صفات مقعة فكرتي والنحر كلمات يوحنا قد بينه وحكذا الشيء marka aad ugu mahadsan walaalahaas meel ka soo jooga laakiin magaca caadiga markaynu nimaano waan qalanay ama magaca yaani qofka uu ku suntan yahay marka dhaxalka social media laga reebo waa Abdullah Balira waa doonka Ilaahay Abdullah magacyada Ilaahay tis lagu jecel ma sha Allah oo khayrka Abdullah kadibna Muhammad abaa ما شاء الله النبي الله محمد بلا أوجينا عليه السلام أوجينا وأحمد مرك عبد الله محمد أحمد بن قولي وصدق مقعه كلا ما أساس يسكون تحنت ما شاء الله لكن فاروق باكر تمركز عبد الله فاروق أبا لما ده لك كاسنا ليده وانا ناس سونا وحكي ما ذي يعني هو تاريخ ده وكي ما ذي يعني dadka wax baran jirnay oo waagi dhalinyarta ciyaalka iyo ku baxay halkaas ka yimid laakiin marka laqabka naynaasta marka Abdullah Faruq waliira marka Abdullah isla su'aashaas gudaheeda intaan aan ka bixin magaca badbaado oo ku caan baxday channelkana ku caan baxay adiguna inta badan magacaaga Abdullah ku bedelay qaatayba qaab nooc ayaad ku keentay magaca macna noocay wax baarsan yahay maxaad ku dooratay والله ما أنت عندنا دودتك ولا لها مقع أساسا لو دوري إن دبابي أو مليء لكن ورت مركز يوتيوب مركز تبعته ما سوشيال ميديا ما شيء مركز مقع بحنيس فيسبوك هذا بروفيلك عادة كسوقات بقول مقع بكسومريس أنت بدك سوشيال ميديا مقع يدا أي استعمالها ملهن ومستعارة السوق عريستين ودين قفك مقع يسمعنا مقع كلا أما الناس لو أقول شيء أما ميدو وياه رأي مقالة ميدو بحسي بجيميل كو قرطي يوتيوب كو قرطي أما فيسبوك كو قرن أما ميلك سو قرن كوي إجابة كتير كوي بالو قرط
laakiin magacan waxaad moodaa inuu micnaha hawshaad qabanaysa iyo asaga laakiin magacan markay timaado magacyo tiro badan baa ka horreeyay soo bedel midkan ka bedel kan ka bedel warfa aad iyo aad saan marka magacu ujeedkiisa waxaan dhihi karaa wuxuu ka imaaday yacni saan hadba magac uga bedelayay oo leynoo kanaa ku fiican ka bedel niyo kan kuma fiicna hadda waa channelka aragteen sakan ku bedel naftu markay qabataan wareeray daalay baa magacan ilaahay ugu toosiyay waaba ku badbaadayba fikirkii magac bixinta iyo raadinta ilaahay uga badbaadiyay badbaada channel bay noqotay marka dad badanna way ku badbaadeen hadana markaas sifadu hawshii magacii iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka waafajiyay iyo wixii markaasna masana magacii bixiyay hadana magac mucjiso kale watayo marka magacii aan bixiyay barnaamijtii haleela ما شاء الله ما شاء الله wax kale wadada toosan baad heshay barnaamijtii marka bulshada u baahnay baahida bulshada ما شاء الله markaas aan hela marka masaas ayuu inta badan ku dhisay ما شاء الله waan filayaa inaad su'aalaha isweydiineyseen oo ku booteen su'aalaha xigeen weydiinayna sheekh insha Allah waxay noqon doonaan waxay isugu jiraan su'aalo jacayl ah wayna kooban yihiin ilaa iyo su'aalood qaarkood waa jacayl baan adduunka uga jeclahay qaarkood waa jacayl qaarkoodna waa noloshaada adiga wax kugu saabsan marka إن شاء الله سؤال كوبات هدي أن أقولنا هرت شيخ بدبادو إنجو من آدم أهان جعيل كم أبهنا واحد ضروري ولا بهين هيبة نرش هذا نحن مركل اللعب سؤال قتل يعني جعيل ما بلو بهين واحد لو بهين يا ما أنت عنتذا ولا بهين ما هي لقاجة ولا أنت إيه محنكو إلى ذاي عبادة الله ولا بهين وحول به مركا وحياة الله بهين الضروري هي ميزة marka jacayl loo baahan ma loo baahan yahay jacaylku wax loo baahan yahay oo daruuri ah jacayl waa loo baahan yahay si fiican waa loo baahan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun musiibo hadii la waayo waa loo baahan yahayo markaan daalna waa u baahanahay meelaan ku nasanaa rabna aad iyo aad waa loo baahan yahayo markaan qalayl iyo naxariis darro dareeno jacayl waa u baahanaysaan xoogaa u qoyno naxariis u tabno waa loo baahan yahay ولو باهن يهايو ilmaha yar markuu iskoolka ka yimaado daalan yahay jacayl buu baahan yahay dhabta hooyadiis iyo waalidii iyo naxariis ba soo dhaweey ka hilmaansi iskoolka iyo buuqa caruurta waa loo baahan yahay jacaylo laba isqabtaa laba saaxiiba laba shaqa si duruufta nolosha ka dhaxaysa ay quruxsanaato waa loo baahan waxa la yiraahdaa mantaqana jacaylka sidiisaba asaga loo baahan yahay asaga waxba uma baahna soo cidna uma baahna markii la yiraahdo hal qeexo hal taariifiyo hadda insaanka marka hadda laga hadlayo waxa la yiraahdaa waa jir iyo naf iyo sanku neefla waa xayawaan aqli leh ay insaanka leh marka laga hadlayo laakiin jacayl muxuu yahay dal hebel marka laga hadlayo xuduudiisa waa halkaas halka dalbi xuduud kale xuduud halkaas ku egta badda intaas qalle laakiin xuduudda jacaylku waa maxay marka la qeexayo waxa la yiraahdaa bila xuduud waa qeexid ma balahan ba asaga wax qeexay asaga lama qeexo يعني أسرع واحد حدود حديدة يا أسرع لما بحدده أسرع واحد والبا واحد جانجويني أسرع واحد جانجويني أسرع واحد والبا مرك مرة دو جاي مرك واحد والبا ولو بهني مية هالغام مرة ما شاء الله ما شاء الله بل حلقة يابا بيها يبات كمرك غاركودين لوجا باهي بدنيا ولا ها ولد سمن كان هدنا ونعيب كفافي سهل انت هنا سن نعيب لوجا أبورو هي قف كان واساس هي وان نعي هي قفك كدر وسهلنت أما قفك الدل أما هالدل نعيب كي كراهية حتى وعادي وضدك دم بروفيشنال بكوي ومعلمين تناجرات مرك كائن لبيرو كاسل باهيدا دسمك وقب باهيدا ما دسمك هوري مرك والله باهي ها ما شاء الله ما شاء الله waxaan filayaa jacaylka in loo baahan yahay inaad adiguna dareemaysid qofkii dareen la weeyaan marka insha Allah waad ka bogateen su'aasha labaad jacaylka maadaama loo baahan yahay oo wax loo baahan yahay ay tahay tusaale ahaan markii Soomaaliya la joogo Abdullaahiyo xilliga kuleylka dadku waxay u baahan yihiin geedo ay harsadaan ku nastaan waa loo baahday geedihii haddana markii loo baahday waa la abuuray waa la dhisay marka hadda waxaan ku weydiinaya waxay tahay jacaylka sidee loo abuuran karaa jacayl dhab ah ilaa mar haddaan ogaan in loo baahan yahay una jiro see loo helaa horta qof walba iyo farsamadiisa yani wax la yiraahdo saana lagu helaa oo inta iskuul la sugeeyay la isbaraya maahan waa qof walba isay daruuftu iyo geerku u galo nolosha wax u barto u galaa way laakiin
halka qodob anu aan leeyahay waa aasaas marka adiga naftaada jeclaatid baa abuuri karta jacayl marka adiga naftaada jeclaatid marka adiga naftaada ka heshid bay ku cajabisaba naftaada badal yeelisad naftaada ku mashquulsan tahay markaasaa qaab jacayl lagu abuuro wadadiisa gaaraysa tiisa daryeelaad kala ku daray ku dara marka laakiin markaad akhlaaq wanaagsan iyo toosanaan iyo naftaada ku mashquul iyo dantaada raac iyo macnaha qofkan inuu yahay qof nadaafad leh qof qurux badan qof afkiisa iyo adinkiisu suuban yihiin qof haddii alla kuuran yahay shaqadiisa dantiisa ku mashquulsan qof muuqiisa kala dasamanka marka lagu daro soo jiidasho leh waa hakada qof yani daruuftan way keenaysaa qofka inuu jacayl u abuuro ma asagu abuuro daruuftan way keenaysaa daruufa abaaradii midda aaranba waa keeni iyadana waa qayb ka marka hawlahaas oo dhan baa halkaas uga dhex maray maasha Allah laakiin naftaada waa inuu jecel qof markuu naftiisa jeclaado wax keeni kara marka hore naftaada jeclo kadib aad jacayl abuuran kartaa naftiisa hadday baali tahay waxba kareema waxa weeye waa geedka hooska kor weeye hooska kor ka soo kor maasha Allah sheekha su'aasha saddexaad oo u gudbayna waxay tahay sideed ku garan kartaa qofka ku jecel hadda waqtigan la joogo rag iyo dumar waxaad arkaysaa gabadhu inay intaas soonina soo wacayaan mid walbana uu leeyahay aniga waan ku jeclaa way ku wareeraysaa kee run kee been ku walbana wuxuu leeyahay adigaa jira isku sin way u hadlayaan marka sidee ku garan kartaa qofkan inuu ku jecel yahay qofka inuu ku jecel yahay sida adiga aad u dareemi kartid nacaybkiisa aad u dareemi kartaa inuu ku jecel yahay kale inuu ku nacab yahay markaad dareentid aad dareemi kartaa okay asaga inuu ku nacab yahay ama inuu ku nici karo ama yani qaabka qofka ku nacab waa dareemaysaa ma qofka ku jecelna waa dareemi markaas sida qofka xaasidka qofka ku xumaanta ku haya u dareemaysa kana u dareemi laakiin jacaylka qofka ku dareemi karo tusaale nin baa ka soo qaadan ninkaas inuu ku jecel yahay arkaysaa gabar yahay baa isleedahay kaas ku jecel yahay waa dareemi kartaa midka bimacnaa waqtiga tusaale oo kale aad dareemaysid waqti ku dhumin waqti la qaadasho wax la yiraahdo jirta iyo waqti u qaadasho waqti u qaadashada waxa way qofkan dana kala ma hayo waxa uu hayo malahan halkan galib leeyahay waqti la qaadashana waa wixii oo laba dhinac ah Soomaa marka waxaad dareemaysaa qofka kan waxa la yiraahdaa naftu waxbay soo jiidataa meesha xoogaa ka dadayso way ku dareysiin ba adoo iyadoo hadlin meesha xoogaa manfac ka jirtana xoogaa way soo dugsanaysaa ilaa naftu meesha u ron marka waxa ku dareemaysaa waxa weeye qofka kan ama ninka kan in uu yani mid hadalkaada midka waqtigaada u xiisaya danaynaya yani aan u arkin ceebahaada ciladaan u arkin ceeb waa jirtaa ceeb waa caadi qof walba ceeb buu leeyahay laakiin cilada aan u arkin qof marka ana ku ceebayno oo cilad uga dhigino saana tahay saa darteed anigu kuma jeclaan karo saana tahay saa darteed horumar ma gaari kartid ama sidaana tahay kugu jeclaaday ama saana tahay qof ma tihid ceebta qofku leeyahay in yani cilad looga dhigo dhibaato marka qofka ceebtaada ceeb waa leeyahay qof walba aan cilad kaaga dhigin kugu afiyuusi hadi saana tahay ana kugu oran marka waxaad ku garanaysaa qofkan hadalkaada imise intee buu saameyn karaa hadalkaada imise in la eg buu qaadan karaa oo dareemi karaa hadalkaada imise in buu u baahan yahay ballamaha imise in la eg baa fushay ballamuhu xaggee ku socdaan ahdaaf iyo ujeedooyin noocee idinka dhexaysa horta muxuu leeyahay oo dana maxaa ka dambeeya asaga daruufta ku geeraayeen maxay tahay wuxuu sheegaya ma suurtagal bay ka noqon karta marka daruufiisa nololeed la fiiriyo waxbadan waa saameyn wax badan nolosha la saameyn wala daraasiinaya wala qiyaasay kadib waxa ku soo baxaya labada dhinac mid qof fog ama qof dhow inuu yahay waad ku mahadsan tahay marka taasina waxaan filayaa waa qodob muhiim ah oo aad ka bogateen su'aasha kale afraad u dambaysa maaragtay arrimaha jacaylka weli ku jirnaa weli jacaylka baan ku jirnaa marka waxaan weydiinaynaa sheekho Abdalla jacaylka guurka ka horeeya ee jacaylka guurka kadib sidee lagu kala garan karaa keesa maaragtay ee sheeg maxaa farqiga u dhaxeeya labadaas jacayl inta badan dadku horta waa qadiyad muhiim ah taas aad iyo aan su'aal muhiim ah meesha ku jirta horta dadku ku kala duwan yihiin waa laba group oo dagaal ka dhaxeeyo marka labada la fiiriyo jacaylku waa goorma guur ka hor mise guur kadib qaar aaminsan guur ka hor qaar aaminsan guur kadib dagaal wali waxa ka dhaxeeya cidiyaha la isku tagay ka dhaxeeya
laakiin anigu waxaan aaminsanahay qofna inuu jacaylka guurka kadib helo qofna uu ka hor helo qofna labaduba uu helo qofna labaduba helo marka lama dhihi karo waa wax qaacido ah oo dhinac u go'an ma la dhahayo qof baa laga yaabaa inuu fiican yahay guurka jacaylka kadib ka hor iyo kadib ka hor oo kaliya buu ku fiican marka qofka iyo dabeecadiisa waa qof yani qaacido dadka camimaysa maaha ama wado dadka oo dhan ay camimaysa qof bay saan u habboon tahay qofna saan u habboon isla qofkii sidaan u habbooneyd waxaa laga yaabaa qof kale inay soo habbooneyd ay ku xuntahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay labadaba jira lianna wax ma guursanaysid ilaa aad jeclaatid aad iyo aad ilaa in lagugu daro mooyaane dee tuulo ama baadi ama dhaqanka hore laga yaabaa gabadhaan arkin hooyada ama qofka hooyadiis ama aabihiis gabadhaan kugu darin weligiis ma arkin waa laga yaaba oo hadhowna jacaylku dib kasoo burqo ama qaraaba aad tihiin ama qaraabanimo saasa laga yaaba waxaas waa wax iska naadir laakiin haddadan magaalooyinka marka limaa haddadan adduunyada tan aan ku noolay qarnigan jacayl baa lasku guursadaa dee gabadhan hooyada halka ordaysa wiilkina kala kawtay meelaha masaska waxay soo nidaamsadeen baa loola soo laabtaa waa hadday soo laabtaan marka qof jacaylka hadda marka hore waa inuu u baahan yahay wax ka horeeya kan dambe kan guurka ka dambe waxbaa ka horeeya laakiin rag iyo dumar marka loo qaybiyo ragga kan hore guurka ka hor ku habboon bimacnaa ku badan dumarkana guurka kadib bay ku badan yihiin ilaa iyagii baa wax doona mana dumarka waa la isjeclaysiiyaa markay guursato haweeneydu run iyo buux usii jeclaanaysaa si fiican markaasi arkin jacaylkeedii inuu niyad jabay ama lu go'ay ama uu run yahay laakiin waxaa laga yaabaa ninku marka hore inuu jacayl fiican yahay marka guurka kadibna khalaas waa arkaysaa dhacdooyinkaas maasha allah labada rasuulka ilaahi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jacayl ma arkin oo ka dhasha guurka wax ka weyn maasha allah ilaa dadkii intii hore in ka badan ba iskaga soo dhawaaday si fiican guurka ka hor marka jacaylkii hore mid ka badan baa jiraya marka jacaylkii in ka badan baa imaanaysa haddii laakiin duruuftiisa loo diyaariyo nolosha laakiin iyo meel uu ku dhalan karo inuu yimaado nolosha hadda marka la fiiriyo kay ku wanaagsan tahay inuu qof uu jecel yahay guursado uu nolol la qaato in uu guursado qof ama loo keenay ama lagu daray noloshaasi kay dheeraan kartaa hadhow haddii la isweydiiyo horta nin baa hore wuxuu yidhi suuganyahana doqomadu buu yidhi hooyooyinkood baa u guuriya gabdhaha ku dara diracyadana jacayl bay ku guursadaan marka dadka qaar waa laga yaabaa inuu gabar fahmo iyo gabdhaha makrigooda iyo siyaasadooda iyo kaydkooda inuu fahmi karin baa laga yaabaa hooyada intay u fahamto mid iskaga soo ku qabato waa macquul halkaas inuu naba qabo laakiin ninku hadduu yahay farsamo yaqaan hadee wuu kala garanayaa qofka suuqa markuu arko marada la-eg wuu garanayaa marada tayada wuu garanayaa kabta la-eg wuu garanaya midda ku qurux badan wuu garanayaa saas kale wuu garanaya marka hadduu magaalada waaqay marka waa laga yaabaa mid aan waxaa fahmay badda ku dhex wararay in loo guuriyo waa laga yaabaa saa u fiican tahay marka waxaad leedahay guurka ka hor siduu u fahmi waayo loogu keenay buu markii dambena u fahmi karin marka taa hore muhiimsan horta inay wax bilowdaan marka in jacayl la isku guursadaa fiican buu leeyahay sheekh cabdallah taasaa muhiim taasaa muhiim noloshana ku dheeraan kartaa hadhowna jacaylka laftarkiisa waa inuu sii baraaro oo sii jiro oo guurka kasii bato kasii quruxsanaado jawi arrintaas dhasha waa inay la helaan su-aalihii jacaylka afarta halkaasaan kaga baxnay laba su-aal kale ayaa inoo hartay marka su-aal kale ayaa inoo hartay hal su-aal su-aasha inoo hartay waxay tahay sheekh badbaado inta badan waxaad helisaa dumarka waana hawl maaragtay adiga iyo channelkaagaba aad ku soo caanbaxdeen dadkuna in ku barteen maasha allah marka arrintaas iyada ah qofba waxbuu ku qanacsan yahay adigoo qanaaca intee leeg ayaad ku qabtaa arrintaas iyada rajo intee leeg ayaad ka leedahay inaad hawshaas kusii guda jirto ma wax aad joojin doontaa mise wax adiga hobkaaga ood weligaa wadi doonto aada u mahadsantaa horta dadka qaar markay wax sameynayaan waxaa laga yaabaa qanaacadooda inaysan ku samayn aad iyo aad dana kale ayagoo ku fiiraya macquula aad iyo aad waxaan maqli jiray fanaaniintu waxay fanka u galaan marka nimanka la fiiriyo say dumarka ugu ugaarsadaan waa laga yaaba meelo kale sidoo kale rag sidoo kale ma kuwa wadaada waxan isku dar laakiin anigu ujeedkayga sidaas ma hayo midda kale qanaacada markay timaado alxamdulilah ku qanacsanahay bal waan ku qanacsanahay 100% faa'iidaan ka helay faa'iido muuqatay mid qarsoon faa'iidaan ka helay faa'iido macnaha يعني دي لما بشيء كده وحاس هذا هو قناعة ضافتي ما شاء الله بقول كيف بقول أو
أسف عندي أنا وقع سنة ما شاء الله بل مركز أمسنا إنه إلهي بركيه ما شاء الله ما شاء الله وهذا نشان الكيجي بركيه واجا كور كان الكيجي لما أقوم بنت بضم والله ما شاء الله أما دتك سوا يرايه تمرك نفترك 17 سوا 17 كآخر كيس يا هذا ما كان برنامج كان بلا هذا وابا لبا سنة يحوجا كور لا تصنع ده كتير لا كور عن الدنيا نقول هذا عن أصير نقول ما شاء الله تمرك نفترك أكوه اللي أنا ما أروح بحلين شيخنا يا شيخ بدبال أنت مقالة هذا مرتوح على جيابه بحكي اليوم ما عرفت أنت بدن بحكولها الله حوش وبدن 17 كآخر كيس ما كان برنامج كان بلاوي 17 كآخر كيس 18 كي 19 كي 20 هذا الوجه انت أسوأ channel كوب انت سوتشرا ولو كهر بها أبورناض لكن واحد شيء كلا ماين marka waxa uu la kacay oo markii barnaamijtan iyo hawlahan aan galay marka waa meel lagu barwaaqoobo waaga soo roobnoo daay ما شاء الله ما شاء الله سؤالي انت سينو ديهين شيخ بدبادو hadaan kula yara kaftamo waxaan ka sheekeynaa wax badan inaad ku jirto hawlaha dumarka sida saxda ana reer iyo family baa leedahay dumarkuna inta badan waad u helisaa iyaguna way ku heliyaan meelaha commentiyada iyo telefoonada iyo su'aalaha iska soo daba dhacayana waxay u badan yihiin dumar inta badan codsi xagaaga kaga imaanaya macnaha xagooda kaaga imaanaya adiga ku socdo marka hal familna waa leedahay sharci diin ahaan hadii la yiraahdana wax aanan kugu xumeyn hadii ka waran bal aad isku fiiriso family labaad yani xaas labaad dumar fara badan oo ku soo weerarayo ku soo ataagaraynaya raba inay maaragtay nolosha ay ku soo biiraan noloshaada marka tala ahaan hadii aan kugu siiyo ka waran bal inaad arrintaasi waa macquul inay jiraan dad badan oo hadda aan gadaasheeda jiro oo ii ka soo maray marka hawshaasi ka war horta hawlahaas horta anu waa ka xajiimooda ma ku sheegin macnaheeduna ma ahan yani barnaamijkan waxa uga hadlayo social media soo geliyo inaan macnaha ama haween xuquuqda aan u sheegayo inaan haween doonahay macnaheedu ma ahan dad badan oo rag u badan yihiin dumar qayb ka yihiin waa laga yaabaa fikradda inay aaminsan yihiin laakiin waa iyaga wax u taalla waa hase yeeshee aniga markay timaado jeedkaan usoo galay sidaas ma ahayn jeedada usoo galay sidaas ma ahayn halkan hadda waxaa ku jira dad fara badan aniga noloshayda alxamdulilah waa haystaa noloshayda alxamdulilah taas iyo noloshaydaas bas oo hawlahaygaas kaliya ducaa kaliya laakiin hawlahaas aniga laylama imaadaba adduunka qof igu dhow hadduu igu imaado abarteeda ka taa laygula imaado yani dad qaar waxaa laga yaabaa haddana maba ahanba maxaa ku qancinaysa waaye hadda haween badan waxaa jiro adiga nafsadaada ku doonaya ama aniga ha ika soo mareen ama channelka ha soo mareen meelo badan ha soo mareen dadkaas iyaga waxay u baahan yihiin waxay ku qancaan dad fara badan wanaagsan way ku jiraan sidaan hadda maxay ku qancayaan marka ana maana adduunka fiiri Soomaalida waxaan garaadlo way mogtahay qofka arka waxaan qoran qofka Ilaahay soo daahiriyo Ilaahay soo diray laga yaabaa inaan ka dambi badan khalad badan laakiin Soomaalida waxa waaye interest bay arkaan bimacnaa qofka markuu hawlahan ku mashquulo hawl un interest buka dambo ku tahay si fiican laakiin waxaan soo xawka ma jiraan maxaan ku qancinayaa ma ba qancin karaba sababtoo waxa ayaguna Ilaahay oo weedar inaan qanciyo kow ayaguna inaad adal ku ron yahay inay soo khaldamaan ma aha soo laguma jeclaan karo waxa tahay qof aan inta badan la takaadiyo ay u dayay dad macnaha maya anigu waxaan ka hadlayaa ka wadwatay maya waxaan ka hadlayaa wax wacyi ah oo dhici kara marka aniga naftirkeena way soo martay dad badan baa ay ka soo maray sida xaqiiqada aan ku hayo hadaba marka dadkaas iyaga ana waxay maaragtay igala hadleen anna waa inaan kala hadlaa si good oo in la wada ogyahay ilaa maadaama aniga qof ma sheegayo hebel ma dhahay marka adigu waa lagu jeclaan karaa qof la jeclaan karaa tahay qof loo baahan karaa tahay marka dadkaas iyaga isku day kartaa inaad hawshaas gasho family kale ilaahay afar buu ku baneeyay matna wa thulatha wa ruba hada ilaahay atu baneeyay ilaahay luqunta isqaawmu ku dhihin ilaahayna ismaqiyo kuma dhahay ilaahay kugu wajir ilaahayna kuma qasbi ilaahayna kugu xisaabinayo laakiin sheekayga dardaar welintaas anu ma yeero sheeka dardaar welin baa dhacaas dardaar welin anu laakiin hadda waxaan kugu yimid ba su'aalaha caadiga ah kuwa dadku soo dirtay inay kaaga jawaabaan sheeka ma ilaahay maanta
maya laakiin maya sheekh saas ma sheekooyinka xataa haddii walaalkaygu imaado waa ku kala go'ayna been kuu sheegin maya sidaas ma han xaajadu waxaan ka hadlaya waxa weeye wax iska wacya dhici karana حتى ما حد يحكي وعي مركا adiga xumaan ay fahmin aniga hadda walaalaha adiga dadka halkan kugu xiran su'aalahan ka usoo fariis su'aalahaas wixii jawaab garanayno ka caawino aynu kaga furfurno laakiin sheekooyinkan iyo waxa raqiis ma wallahi waa kala labooda wallahi raqiis iyo waxaan markaa waxyaala liita oo bimacna adoonsiga dumarka qayb ka dadku adoonsadaan fikradaha iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin ugu soo gabadaan kadibna ay yani kaga faa'iideystaan danahooda iyo duruufo jira sida dad badan dhacday hadhowna la yiraahdo qaarkood inay hadhow yiraahdo ukhti nafta ku dhacday hadhow kuma rabay waxaan aaminsanay adoonsiga dumarka inay qayb ka tahay laakiin raggu ay ku danaysanayaan markay duruufo badan dumar badan uga faa'iideystaan ama dana badan sida mid kamid jecel naag gabar jecel markuu arko duruufta uga faa'iideysan marka duruufahan uguma yeelaba duruufahaas aan u sheegay dumarka waxay ku amaana waxa laga yaabaa qaarkood inay aaminsan wax laga qarsado dadka qaarkood ay aaminsan yihiin laakiin xaqiiqada runta waxa waaye waxaan aniguba aaminsan marka aniga ma ka tagaba dareenkayga waxaan aaminsanahay waa bahdilaad dumarka lagu sameynayo iyo adoonsi aduguna sheegeenkan dadka gule maatay maxaad aniga ama taas hadda ka codsanaya arinkaasan ka codsanaya dadka harta dadka qaarkood markaad fikir ka haysatid iyo markaan miiska la fariisato fikradaha qaar la dhalaalisid wax badan baa kuu soo baxaya marka anigaas waxaan ku arkaa fikradaas walaalahan ka raali gelinayaa khalad aniga iga gelaysid marka taana looma baahnaan hawlahaas leelama soo galo layguna imaado nooc kasto iyo duruufahana dadka ugama faa'iideysto anuguna ma ihi danaysta dadnimada aan garanayn dadkan adoonsada dumarkana sheekooyin been u sheega iyo khiyaali hadda raali aho marka sheekh raali aho hadda maxaa raali gelina nin anigu marka sheekooyin anigu aan ka faa'iideysto sheekooyin ka fikira maba ahanba qaamuuska nololeedna iguma jiraan marka ma geeri baad eela imaatay dardaar welin iyo tacsi maya golama imaane waxaan kala hadlay waa wax iska wacyi oo caadi ah waana tala ahaan aan ku siinayo waxna adigana kuu fiican okay waxa ka hadlaysaan soo maahan afar baa la baneeya sheekooyinkaas dee rag baa kamid tahay midii afartaba hore u sheegay hore sheekada horaan ka jawaabnayso midii afartaba matalaysay joogtaa marka qof afar qaba aan habeed afar haween ilaa 4 kun bayada ka qiimo badan afartiba mid matalaysa marka hawshan hadda wadid hawl anigu sheeko kale aan baa u arkaa ma aqaan baa inuu wax ka sheega saaxiibana waa ku wareeray ha adigu laakiin waxaad aaminsan tahay fikir ah haweeney waxaa jirta afar iyo ka badan matali kartaa waa fikir ayaan horna noo sheegtay marka sida saxda ana haweeney hadee waa un hal haddii hal ka badan qiimo lahayd waa naloo sheegi lahaa wax walba waa naloo sheegi lahaa marka waa naloo sheeg anaba ku sheegay hadda waa garta anaba hadda ku sheegay marka ma haweeneyda iyo xaska ay rabtaa hadda inaad maya ilaa aniga hujub igu soo qaatay dadban oo bimacna laga yaabo anigu aan aaminsanahay dad kale maya khalad hay fahmin ku soo adeegsanay anu saas aaminsanahay laana uguma horeeyba qofkii hawlaha sameeyay marka meel lagu baaba ayaa laga yaabaa inaad jabisidba maya raalliho horta taasi kama wado qofna ima soo adeegsan qofna maaragtay inaan ku xadgudbo ma rabo laakiin waxa muujinaya waxay tahay wax dhici kara waxaan muujinaya waxay tahay wax dhici karo dad badan ay isweydiin karaan anu hadda nin waxaan islahaa fikrad wanaagsan buu leeyahay dadku isoo jeedinaya bal caawiyo barnaamij la sameeyo wax uu su'aalaha dadka qaar ugu sheekooyinka haddaad iga keentay intaada iga akaanaysa saaxiib maya afur mikrofoonkaadana ku siinaya may afur hayno ahaato mar kale iyo waxaad may raalli horta mikrofoonka ku cesho sheekaba yeelamaysa been isku soo laabad wanaagsan Sheekh Cabdullah horta uu baxay uu naga tagay waxa laga yaabaa inaad arkaysay sidii uu ku falceliyay anigana waxa weydiiyay su'aalo aan dhowr jeer ku soo celceliyay oo si khaldan aan maaragtay u weydiiyay marka wuxuu ahaa arrin aan ku soo talagalay oo markii aan su'aalaha weydiinay aan soo qoranayay aan ugu talagalay meesha ugu dambayso inaan su'aashaasi ka weydiiyo waxayna ahayd ku talagal prank ah iyo wixii uu ku falceliyo sheekha jazaahullahu khayra marka haddana uu baxay oo inaga xanaaqay anigana waxba uma sheegin marka aad baa isugu fiicannahay ha ka walwalina saaxiibaan nahay waan la hadli waana soo celin doonaa adinkana maaragtay arrintaasi ila ogaada branki ayuu ahaa isagana kolley uu daawan doonaa marka brankeena wax iska caadi ah haddii uu noo ogolaado intaan dambe muuqaalkan aan sameynay inaan ku darna videoga oo qaybtan brankiga ah
oo hadda aan duubay ee qaybtii ka horeysayba waan ku soo dari doonaa marka hadda asagaan la hadli doonaa amar ayaan weydiisan doonaa iyo jawaab insha Allah taala adinkana su'aalihi aan weydiiyay inaad ka faa'iidi doontaan ayaan filayaa saaxiib baan nahay adinkana ha ka walwalinina mar dambe waan idinku soo celin doonaa kulan dambe iyo waraysi dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh